labada gacmood ayaa laga xidheeyaa, dabada waxa lagu dhex istaajinayaa qol cidla ah, dabada leerka ayaa laga baqtiinayaa. midabka kaliya indhahagu qabanayaan wuxuu noqonayaa mugdi madow ah. kadib 10 ilbiriqsi marka iftiinka la daaro waxaa kuu muuqan doona rag wejiyada soo dabooshay. kadib waxay kuu jiidan doonaan qol ay ka baxayaan qaylada qaar ka mid ah saaxiibada iyo codad aadan weligaa hore u maqlin noloshaada. haddaba waa maxay sirta ku duugan goobta? maxay halis ugu jiraan dadka galaa? waa maxay waxa ugu xun argagaxa leh ee laga helayo goobta? ka hor intaynan mawduuca gudagelin, fadlan subscribe-na soo dheh, like iyo share-na sii dheh si uu gaadho saaxiibo cusub. mahadsanid. kadib qashaafad kale lagu shido waxaad arki doontaa baranbarooyin raacaya wejigaaga, kaana geliya meel kastoo dalosho wejigaaga oo xitaa qaarkood hoos ugu dhaadhacayaan maryahaad xidhan tahay. sidoo kale waxaa kaaga soo muuqan doona rag xidhan maryo dhiig ka buuxo, sitana midiyo aad moodaysid inay u nool yihiin inay wax dilaan. waxaa haddana mar labaad kaa damaya leedhka marka lagu daaro, haddana indhahagu waxay qaban doonaan mid ka mid ah ragga oo xiiraya timahaaga isagoo aan wax ogolaanshaha ka haysan. in yar kadib haddana waxaad arki doontaa mid ka mid ah caarooyinka noocooda khatarta badan oo kaa raacaya wejiga. waxaa mar kale ku jiidan doona raggii wejiyadu ay u daboolaayeen oo ku keeni doona qol kale, iyagoo wejiga kuu gelin doona biyo qabow ilaa aad ka dalbanaysid inuu kaa joojiyo, wax yar oo naxariis ahna kuu muujiyaan. waana waxaad u soo badheedhay, mana aha wax la buunbuuniyey, balse waa xaqiiqo jirta. waana suurtagal inaad ka qayb gasho ciyaartan oo loo yaqaano gurigii hagirdaamada. hadday kuu sii suurto gasho inaad u dulqaadatid saacadooyin kooban, waxaad ku guulaysan doontaa lacag dhan $20,000. sidoo kale run ahaantii waxaa jira liis aad u dheer oo gaadhaya 10 qof oo ku nool Maraykanka oo aad u xiiseynaya inay mar uun ka qayb galaan ciyaarta. sidoo kale waxaa jira dadkii hore uga qayb galay oo ah qaar ka qomameeya. haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah, ma jira qof ka soo noqday oo hore uga qayb galay, ama qof ka qayb galay oo dhammaystay kuna guulaystay lacagta? goobtan aynu ka soo sheekaynay ayaa lagu magacaabaa Makamei Manor. qofkii arkaana guriga waxa uu arkayaa inuu la mid yahay guryaha kale ee ka dhisan Maraykanka, balse xaqiiqdii gudihiisu waa mid ka dhigaya qofkii kale inuu iskaga cararo. balse arrinta argagax leh ayaa ah mid la xiriirta sida raaxaanta. waxaana arkaysaa qolka aad ku jirtid barkimooyin soconaya, aanad arkayna wax halaale wax dhaqaajinaya, sababtoo ah waxaa jooga rog xoog waaweyn oo loo tababaray inay ku baaqdan geliyaan. sidoo kale waxay kaa dhigayaan inaad u oydid si bilaa naxariis ah. waxaana jira qoraallo lagu soo qoray baraha bulshada oo lagu sheegayo waxa goobta ka dhacaya inay yihiin arrin sharci darro ah, ayna sababi doonaan xanuuno nafsiyan ah, ama ay soo baxaan dhalinyaro isku dayaya inay sameeyaan ficilada Makamei Manor oo kale ah. ciyaartan ayaa ah mid aad u argagax badan, mana aha mid aad yar uga qayb geli kartid, balse waxaa laga saxiixayaa heshiis gaadhaya ilaa 40 bog. sidoo kale waalidkaana waxaa laga saxiixayaa warqad ogolaansho. waxaa intaa dheer ee lagaaga baahan yahay ayaa ah waraaqo caafimaad oo dhammaystiran, in aanad qabin xanuuno jismiyan ah iyo kuwo maskaxiyanba ah. haddii aadan haysan waraaqaha caafimaad, ma lagu ogolaan doono inaad ka qayb gasho. markaa kabacdi ayaa lagu siin doonaa shahaadada aad kaga qayb geli lahayd. waxaana jira 2 dhismo oo aad u muhiimsan, kana mid ah 40 beej aad saxeexday. dhismaha koowaad ayaa ah dhismaha 20aad, in aan ka qaybgalaha loo ogolaan inuu ka baxo ciyaarta ilaa lagu arko wax dhaawac ah jidhkiisa ama naftiisa ay khatar gasho. ka labaad ayaa isna ah dhismaha 25aad, uu toos u xaqiiqsanayo ka qaybgaluhu inuu ka qorqoomayo biyaha ama aanu isagoo badqaba ka soo baxayn. sidoo kale waxaa jira shardi kale, isna lagu ogolaanayn inaad qasriga gasho ilaa aad cunto u keento ee uu xanaaneeyo ninka qasriga iska lehi. markaas ayaa lagu fasaxayaa inaad gasho. haddaba ma rabtaa inaad gasho? waxay qaadanaysaa saacadaha aad ku dhex jiraysaa guriga, 8 ilaa 10 saacadood ay kugu dhex dhibi doonaan ragga wejiyada ka daboolani oo lagu sifeeyey inay yihiin rag manaxayaal ah oo raadinaya inaad isdhiibtid, kuwana ciqaabi doona mid jireed iyo mid maskaxiyeedba. ciqaabaha ay ku marsiin doonaan waa sida kuwa aad ku soo daawatay filmaanta oo kale, kugu kalifaysa inaad isdhiibtid isla markiiba. sidoo kale waxaa jira dhismayaal ku yaala Maraykanka aan la gelin qarniyo, la sheegay in ay degan yihiin jiman iyo raaxaano, balse ciyaartan waxay kaga duwan tahay in si dhab ah lagu dhibaataynayo, lagamana dhex yaqaano qasriga dhexdiisa kelmadda nabadgelyada. haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah,
waa maxay sababta uu qofku $20,000 naftiisa halis ugu gelinayo? Maruu sharaxayay milkiilaha qasriga iska leeyay ayaa sheegay in ay ka qayb galaan dad ka cararaya cidhiidhiga nolosha ama wax la'aan la soo diristay. Shardiga kale ku jira ayaa isna ah in qofka la sii daawadsiiyo dadyow hore uga qayb galay ciyaarta lana marsiiyay ciqaabo daran sida in wejiga baranbaro laga saaro ama la tumo ama biyo qabo wejiga loogu rido. Mana dhicin inuu qof halka kaga noqdo ilaa uu soo arko ciqaabta. Mana jiro qof dhamaystay 8 saacadoodba si uu aamino waxa meesha ka dhacaya ama uu guulaysto lacagta inta leeg. Haddaba daawade, ma jeclaan lahayd inaad ka qayb gasho ciyaarta mise ma u malaynaysaa waxa meesha ka dhacaya inay yihiin sharci?